asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada Somali Motivation Podcast. waxaa idinla socodsiiya anigoo ah Astaar Cabdiraxmaan Caydiid idinla soo saara barnaamijkeena. maanta aan soo qaadayna waxa weeyaan mowduuc ku saabsan inuu qofku naftiisa cafiyo oo ka cafiyo khaladaadkii hore oo galay, qoomamada amba waxay doontaa ha ahaato, waxyaabaad qabsan weyday, meeshaad gaari weyday, saa doonaysa inay noqon weyday, ballanta naftaada oo qaatay inaad ka baxday, wax alaali waxay doontaa ha ahaato, qofku inuu naftiisa cafiyo suu hore ugu socdo oo horumar sameeyo. haddaad naftaada cafiyin, qoomamada iyo ciilka iyo mataqaanaa naftaada dhibaatada aad ku hayso waxay saameynaysaa go-aanka haddaad qaadanayso, naftaadana way la hadhaysaa oo dabeetana waxaa laga yaabaa in waqtigii aad ka xumayd, maxaan saa u yeeli waayey, maxaan saa u sameyn waayey, ay kula sii dheeraato. markaa qofku waxyaaba fara badan baa keeni kara inuu khalad galo, amba uu go-aan qaato, amba uu wax ka murugoodo. talaabada ugu horeysa naftaada ku cafi kartaa waxa weeye marka ambaad kaga bixi kartaa isqaamameynta, inaad marka hore khaladkaagii aad aqoonsato siduu u dhacay, wixii keenay iyo sababtii keentay, dabeetana aad ka fikirto, dabeetana aad naftaada adigoon judgment fara badan ku haynin, oon mataqaanaa ku xukumin go-aankay gaadhay, aad isla markaa aqoonsato tallaabadii aad qaaday amba go-aankii aad gaadhay inaad ku gaadhay warbixintii iyo mataqaanaa informationkii markaa aad haysay inaad ku gaadhay. oo hadda waxaa laga yaabaa inaad warbixin intii ka badan hayso, inaad wax badan og tahay, inaad wax badan arkayso, inay waxyaaba fara badan kugu soo beyraan oo go-aankaaga wax ka bedeli karaa. laakiin marka aad go-aanka gaadhaysay maad haynin, sababa aad u gaadhay ayaa jiray, isla markaana waxba kama qaban kartid oo wixii uu dhacay. saa darteed naftaada cafido ood u aragto inuu cashar ahaa oo aad cashar ka baratay, oona waxaad mar dambe ku celinayso amba mar dambe dhacaya aanu ahayn. qofkuna haddaanu khalad sameynin horumar ma gaadho, amba waxyaaba fara badan oo nolosha waxba kama ogaado. markaad khalad badan samaysaba waxaad ogaatay wadooyin fara badan oo haddii aad mari lahayd dhibaata kaaga imanayso oo kuu cadaatay. marka khaladku wuxuu muhiim u yahay horusocodka nolosha. cafiska naftuna waxay muhiim u tahay inuu qofku isaguna hore u socdo oo si caafimaad qabo bilaa qoomama marka uu ku noolaado. sidoo kale qofku waa inuu fahmaa inuu nahay bili aadan, adiga khalad sameynaya, aniga ayaa khalad sameynaya, qof kastoo adduunka ku dhaqanaya khalad sameynaya, go-aan khalada gaaraya, meel khalada tegaya, wax khalada sameynaya, cid khaldan aaminaya, cid khaldan ku kalsoonaanaya, cid ku khaldamaya, isaga khalad laga gelaya. marka naftaada inaad naxariis fara badan u muujiso oo aad cafido mar walba ayaa muhiima, adoo ogsoon in mataqaanaa bili aadan aanu nahay khaladka markaa. laakiin arrinta aad iyo aad koo muhiimka waxweyn mar walba inaad xasuusato ood ka fikirto ood rifalagara mataqaanaa aad dib u eegis ku sameyso khaladkaagii sababta u dhacayo, siduu u dhacayo, wixii keenay, isla markaa asaxdo, waxna aad ka barato, khibradna ay ku noqoto, oo aad hesho markaa sabab amba fursad kasoo baxday khaladkii aad gashay oo kor u qaadaysa amba keenaysa inaad korto, oo mataqaana khibradaadii iyo koritaankaagii iyo aragtidaadii nolosha markaa wax ka bedelaysa. haddaanu khaladku intaasoo dhan keenahayn, markaas khasaare ayaad ku jirtaa oo waxaa suurtagala inaad markaa mar labaad ku celiso. shayga isaguna aadka wuxuuna qofku markuu khalad galo amba uu noloshiisa go-aan khaldan qaato amba wax khaldan uu sameeyo, waxaa kasoo baxda waxa la yidhahda guilt amba qoomamada, oo dabeetana uu qofku naftiisa aada u qoomeeyo, taasoo keentay in qofka maskaxdiisa iyo fayaqabka noloshiisa uu ay mugdi fara badan geliso oo ay qofku dibudhig ku keento, islamarkaana isku buuq dhici kartaba inay ku keento. taasi qof walba ay muhiim ku tahay markaa inuu xasuusto inuu naftiisa u naxariisto, islamarkaana uu naftiisa ula taliyo amba u cafiyo siduu qof kale ama saaxiib kale u cafiyi lahaa, oo uu wixii keenay iyo wixii uu ka bartay markaa qofku xooga saaro, isla markaana aad xasuusato mar kastaba naftaada inaad cafido. waxaa laga yaabaa dadka kale aan cafino
amba aan ku fikirno sidaan u cafiyi lahayn laakiin nafteena aynan cafiyin. waxa muhiima markaas si qoomada amba aad uga baxdo cafinta naftaada iyo naxariisashada ka sokow inaad mataqaanaa haddii cid khalad aad ka gashay amba khalad aad samaysay aad khaladkaaga qaato aad qof mataqaanaa accountable wixii uu sameeyey aqbalay qaatay sax ayaad noqoto oo haddaad u baahantay inaad cid raali geliso amba aad apology bixiso amba aad dubi saxid ku samayso amba xaaladda aad dubi eegid ku samayso amba aad xal kale la timaado ama mustaqbalka go-aankaa wax ka bedesho iyo wixii keenay khaladka markaa iyadana aad tallaabo ka qaado si ay u fududaato horo socodkaaga iyo cafinta naftaada markaa oo aad qof hore u socon kara noqoto isagoon culays dhanka maskaxda ka saarnayn sababtoo ah khalad hore u dhacay. marka waxayadna muhiima inaad qofku uu mustaqbalka ku eega markaa indho cusub iyo niyadsan oo wixii hore dhacay say doonaan ha ahaadaan waxay doonaan ha ahaadaan khaladkaad gasho wuxuu doona ahaado go-aankaad qaato wuxuu doona ahaado wax kastoo khaldanaa markaa qofku inuu wixii u sixi karaya saxay naftiisana cafiyo isla markaa mustaqbalka uu indho wanaagsan ku fiiriyo si niyadsanna uu eego khaladkiisa wixii uu ka bartayna hore u qaato isla markaana giltiga uu dareemayo amba qoomada uu dareemayo iska sii daayo oo uu hore u socdo. waa inaad hore u socoto unbaad mataqaana kaga bixi kartaa xanuunka amba qoomada go-aan hore qofku u qaato khaldan wax kastay ku keentay. markaa inuu qofka hore u socdo mustaqbalka indho wanaagsan ku eega ayaa wanaagsan asagoo markaa tallaabooyinka hore soo qaaday cafinta nafta iyo xalinta khaladaadkii u galay. isku soo duubo kelmadda ah naftaada cafiye aada iyo aad bay muhiim u tahay runtii culays fara badan oo ay xambaarsan tahay oo waxaa dhici karta inuu qofka mushkiladda dhan noloshiisa haysataa ay tahay inaanu naftiisa cafiyi karin oonu naftiisa u naxariisan karin oonu marka hore u socon karin asagoo mar walba ka qoomoonay khaladkii u galay oo laga yaabo in haddii saa ahayd inaan saa idhaahday ahayd sidaa inaan idhaahda maahayn haddaan sidaa ogaan lahaa haddaan sidaa yeeli lahaa haddaanan sidaa odhan lahayn haddaanan halkaa teegi lahayn haddaanan go-aankaa gaari lahayn haddaanan qofkaa la kulmi lahayn haddaanan waxaa samayn lahayn laakiin intaasoo dhanba oo dhacday qadarka ilaahay baa jira qofka cashar fara badanoo nolosha ka baranaya ayaa jirta waxyaabaha naftaadu waxba ka qaban karin waxaweyaan waxaa tegay ee socday ee tallaabsaday waxaa layidhaha gabal dhacay ma soo noqday ahayd maamarin ee kelmadii wax kastoo dhacay way dhaceen hore uga socdeen labada tallaabee keliya ta kuu furan waxaweyaan inaad naftaada cafido isla markaana khaladkii ciddii aad ka gashay wixii aad gashay aad mataqaana wax ka qabato naftaada haddaad ka gashana aad markaa is cafido aanay noqoto fursad waxbarasho qofku markaa uu wax ka bartay. aada iyo aad baan idiin salaamaya waxaan idinka tegay inaad naftiina cafidaan naftiina u naxariisataan naftiina giltiga amba qoomada ay ku noosho aad kasii daysaan khaladka aad gashaan aad u aragtaan inaad mataqaana qof kastoo bilaadan uu khalad u galo laakiin muhiimadu ay tahay in qofka hore uga socdo oo mustaqbalkiisa uu noqdo mid saxan oo ka hufan markaa khaladkii iyo mid lamid ah. jiray bulshada beegisada dhammaano